ورحمة الله وبركاته. ومركلة يا مع الافتاح جامع بكر يا شركة نسال سوفت وير. وعشركي عربي ها امتحانها ها سودني waxayna ugu soo dambeeyay casharkii 14aad akhyaaray casharkan maanta hadii alla idmo wuxuu noqon doonaa ilaahay idankii maxay ahaydaysaa halka ku aragtaan hamzatu al-mutawassida iyo hamzatu al-mutatarrifa waxaan ku soo jirnay casharkeeni luqadda carabiga ah gaar ahaan imlaagi ama yeeriska wixii la oran jiray casharkii ugu dambeeyay soo qaadana wuxuu hadda xusuusataan waa kan التنوين هورين soo sheegnay wax la yiraahdo waa laba kordhig iyo laba hoos dhig iyo laba godaal mid kasta iyadoo qaybsamaysan waynu soo aragnay insha Allah waxaynu dul mari doonaa maanta wax ka tilmaami doonaa hamsooyinkii ama alifta qaar oo in horena qaar soo aragnay hamsada dhexda lagu qoro hamsaha waa waxa yar ama madaxa yar maanta dhawadna soo sheegnay madaxa yar halka ka muuqdo way aad aragtaan kaasa waxa la yiraahdaa hamse kaasna waa alif caadi sida awgeed همسها dhexda lagu qoro kelmadda dhexdeeda lagu qoro iyo همسها lagu qoro maxay ahaydey kelmadda aakhirkeeda iyada ciwaan labaad ah oo maxay laba ciwaan ka kooban dabcan 13 ugu dambeeyana laba ciwaan bay soo saarnaayeen maadaama ay kooban yihiin waan israacinay hadaba hamsatul mutadarrifa iyo hamsatu maxay ahaydey hamsatul mutadarrifa iyo hamsatu al-mutawassida maxay yihiin كل شيء قدرنا إن شاء الله تقول رئيسة همزة المتوسطة همسها لحظة لغو قرأ وحلقة وذا همسة وهمسة تكتب على وسط الكلمة كلمة لحظة لغو قرأ وكلمة هلك لغو قرأ سيدا أوجد وتنقسم همزة المتوسطة وحيقف سنتها همسها يرى لحظة لغو قرأ كلمة لحظة لقشة إلى 4 أقسام أفر غيبات بوقف سماء كو همزة المتوسطة همسة لغو قرأ لحظة همزة المتوسطة على الألف همسير أو لو قد القراء كالمدة هذه يعني كالمدة كذا أما ألف كذا سلو قراء وهمسير أو لو قراء كالمدة معناها ألف كذا ألف كذا همسها الراعة وهمسة متوسطة وي سيدا أوجد ألكم وادرتان ألف بيالا همسهم مركا الكسر وكجيالا الكسر وكجيالا أم حيث لما قراء قيت البدو حوي همسة المتوسطة على الصدر وهمسها oo lagu qoro sadarka dhinaciisa hada sida kelmadda tashaa oo kale tashaa hamsaha oo lagu qoro sidoo kale calal ya-da dusheeda lagu qoro sidoo kale iyaduna waa badi hamsada oo lagu qoro hamsatu mutawassita calal waaw hamsaha oo lagu dul qoro waawga sida halkan aad ku aragtaan oo mas'uul ah dhamaantood intaas waxay ka caawinayaan qoraalka markii wax lagu yeeriyo inaad wixii garan karto marka lagu yeeriyo markiiba fahmi karto همسها همسة متوسطة maxay ahaydey hamsa mutadarrifa ba wixii bad marka inaad garan karto ayaa looga jeedaa macnaha qoraalka uu sanado ku dhibin sida awgeed ciwaanka labaad waxa weeye hamsa mutadarrifa hamsaha lagu qoro kelmadda xagga ugu dambaysa mutadarrif waa sida barta ugu dambaysa lagu qoro kuwan ama dhexdu galayay afartay waxay u qaybsanayeen mid dhexda mid wow lagu qoro iyo mid ya lagu qoro iyo mid alif lagu qoro iyo mid sadar lagu qoro way kana sidoo kale isna meel gaar ah lagu qori doona laakiin hamsa mutadarrif waa maxay isla eegno hamsatu mutadarrif waxa weeye hiya takunu fi aakhir al-kalimati kalmada aakhirkeeda lagu qoraa oo tuktab hasb al-haraka hadba harakadeedu sida ay tahay baan loo qoraa ama harakadeedu la xiriirsantaa haddii harakadeedu tahay kordhig oo fatxa ay tahay alif baa lagu dul qorayaa okay haddii harakadeedu tahay ay godan tahay wow baa lagu dul qorayaa haddii harakadeedu kor dhigan tahay xalay ay hoos dhigan tahay sidoo kale waxa lagu qorayaa calal ya dusheed baa lagu qorayaa haddii ay reeban tahayna waxa lagu qorayaa sadarka dushiisa hadaba aan aragno وتنقسم إلى هذه الأقسام همسة لو قرأ كونها كلمة واتن كونها كلمة حلقة واتن أنت لو دبا كوريس ميمك يا لامك يا ألفك يدنا كاسي قدام بيسا تنا ولا مين ووغاسي كنت القرآن يدا قدام بيسا تنا يأتنا معي صدرك كورة هدان العرب وتنقسم إلى هذه الأقسام أفرتن قيبات بوقي وسنة ساق قيبك لدون سيدا أوجد إذا كانت الحركة التي قبلها فتحة همسها حركة كهر رئيس حرف كهر رئية همسة ير بنان كتالا حرف كهر رئية هدو كر دقن ياي فتحة هدو كر دقن ياي همسها يروح على قرية ألف كدوشيسة
وادرتان ألف كان دينعيسة تعالى ألف كان دينعيسة معناها ألف لام بحساب سنت هل كاس بيسارنت ألف كان ملأ ودكتك سارنت سيدا أوجد لمبر لو إذا كان ما قبلها حدي همسها يروح كهر يهدي وجودنيه حرف كهر وجودنيه ما كانت وجودنيه لو labada laanba way godan yihiin labadoodana way reeban yihiin hadda waa kan markuu lahaa hadday kor dhigan tahayna alifka dushiisa lagu qoro mala sumaartan la laamka ka horeeya wuuna kor dhigan yahay tanna laamka ka horeeya wuu godan yahay lu way haddii godan tahay waxa ka horeeya uu godan yahay hamsa xarafka ka horeeya laamkana uu godan yahay waxaa lagu qorayaa wowga dushiisa waana taa ku qoran waa yahay ka gudub hadday waxa ka horeeya hamsaha yar waxa ka horeeya haduu yahay kor hoos dhig hoosiga daada ka horeysa wayna hoos dhigantay waa yaada iyada ku dul qoran hamsaha yar baa iyada ku dul qoran sida awgeed daadaas way hoos dhigantay maadaama ay hoos dhigantay yaa baa lagu dul qoraya hamsaha yar oo hadba xarakada ay maxay ka horeeya loo eegaya sidoo kale haddii xarafka ka horeeya muxuu ahaa hamsaha yar xarafka ka horeeya uu reeban yahay waa maxay waxaa lagu qorayaa sadarka la iska saaraya oo banaanka la dhigaya sida tusaalaan hawa marka hamsaha xarafka ka horeeya waa maxay waa alifkan halka taagan isna waa reeban yahay oo wowgana kor dhigan alifkan uu ku reeban yahay hamsihina khasab waxay noqotay in banaanka la dhigo barnaamij kasta shuruuc uu leeyahay insha Allah shuruuciisana waan aragnaa wuxuu ka saacidayaa casharada ugu dambeeya ee hadda laga bilaabo 10 ilaa wixii ka dambeeya ilaa 15 waxay ka saacidayaan waa imlaagi waa yeerski si hadhow marka wax lagu yeeriyo aad wixii u garan karto oo soo saari karto oo noqon karto maxay tii qof wixii ka adag noqon karto ilaahay idinkii saasayna ballan insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.